aan dhawaan Siciid Aadan Faarax Liibaan oo dhawaan aan kula kulmay deegaanka Balcad oo ka tirsan gobolka Cayn ayaa baaq u diray ummadda islaamka meel kasta oo ay joogaan laga soo caawiyo mag ku soo hooyatay oo dhan 100 halaad. Siciid waxa uu ii sheegay in wiil yar oo dhalay wiil kale ay dhawaan ku ciyaareen deegaanka Dhumay oo ka tirsan koonfurta gobolka Sool isla markaana xabsiga in muddo ku xunaa. Waxa uu sheegay beeshu ka soo jeeday ee reer Cali Gari gaar ahaan reer Gorod iyo beesha Qayaad ay kulamo ku yeesheen deegaanka Laascaanood isla markaana kulamadaasi ay isku afgaran waayeen. waxa uu sheegay in magtaasi isagoo tuurta u rutay waxaana uu baaq u diray ummadda islaamka meel kasta oo ay joogaan. sidoo kale halkan waxa ka hadlay culimo diinka deegaankaasi Balcad iyo gudoomiyaha santarka Balcad oo isna baaq u diray ummadda islaamka in ninka la soo caawiyo. rahmatullaahi wa barakaatu. walaalayaal ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa magacay waa Siciid Aadan Faarax Liibaan nin reer Cali Gari oo reer Gorod baan ahay ilma yaro sideed jira ayaa halka arus ku turturtay xagee Dhumay meeshan joogana waa Balcad hadeer أنت لا هلا ويلك أير أودن تي عروس تورتور سوي هاين لبادي قبيلة قل خير عبدي قل خير جرده بهاين ويسوي مادين ويهشي عناد بيلا سقوط تجين لبادي بيرد ويهشي وعين وحي إسلامه إتكسبها النقطة إسلام كوها الإسلام لماذا إن أي أنا نعاوية مكتان والله جبحي بقولك وين جبحي waxay ga baxay qoladii reer Gorod ee aan ka soo jeeday iyo qoladii markay heshiin way ga baxay ga jalka ga tagay markaas ay heshiin waayeen waxay ku heshiin waayeen qolana waxay tiri shariicada islaamka aanu wax ku bixinana qolana shariicada islaamka ma ogolin bay yiraahdeen labada caruur markaa maxaa dhaxmaray labada caruur way isturtuureen waciyaal yar oo jirasab iyo isturtuuray mid baa ku dhex dhintay ciidina markaa meesha ma joogin oo maxaa dhagax ku dhacay anigu meesha ma joogin dhagax ku dhacay anigu waruma hayno ilmihii yaraana askar baa ka haysatay askartii ka haystay waxay ka soo qortay wiilkii dhagaxana ku tuuray waana ilmo sabiyo isteed jira hadeena ilmo joogo Balcad ana jooga meesha wax ka dhacna waa Dhumay marka hadda maanta maxaa urursanaysaa maanta aari baan urursanay masaajidka intaasana laga siiyay ariga ummadda islaamka naga siisay masaajidka Balcad ninkay saad arkaysaan halkan anaga Balcad baan joognaa halkan uu noogu yimi jimcihii hadda ina dhaafay kadibna ninkaasi ragii culimada ahaa ee deegaanka ayuu la kulmay wuxuu yiri masiibada weyn bay ugu dhacday anaguna arinta waanu ka warhaynay ninka maxaa ku dhacay dadka waraysan ninkan waxa weeyaan nin baa la ku dhintay sida uu sheegayo wiil yar oo sabiya uu dhalay ee ciyaal baa meel ku dagaalamay meesha la Dhumay marka la joogay anama halkan aanu warku nagu soo gaaro aanu ka maqalay sida daraadeed wiilkii yaraa wiil yar baa meesha ku dhintay oo 8 jira kadibna waxa weey xaajadii waa la isla afgaran waayay marxaati baa la waayay xaajadii way isla cimaariyaaday waa la isla fahmay waa laga baxay ninka calay xalmagti isagana waa la xidhay oo 3 bilood buu xidhnaa uu ku xanuunsaday jeelkii deekar iyo Jonas iyo xanuuna ku dhacay tabcaan buu gaaray markii uu arkay xaaladdu siday tahay buu yiri warmagtaana iska bixinaya tolob jeelka laga sii daayo halkan waa naga noogu yimi kadibna dadkii islaamka ah jimcaha soo tukaday baan la hadalay waqti jilaalo adag baa lagu jiray dhulka abaartiisa iyo rafaadkiisa oo arkaysaan xoolaha iska tabcaanka ah dadku haystaan kadibna wixii ari 30 neef oo yar oo maqalaho waliba aan iibkiisu qumanayn baan u ururinay 3 casho marka waxaan leenahay dadka islaamka ah ee na arkaya ama na arki doona ninkaas waxa weeyaan walaalkeena muslimka ay dhibaato soo gaadhay alla caawiyo oo aynu hadii beenmayo ala karaan dal iyo dibad qof kasto muslina qabiilkoo doona ha ka dhasho midabkoo doona ha ahaado waxaan leenahay ninka la soo caawiyo mag boqola oo qabiilo la rafato oo ku baabado sanawaad bixisa la arki jiray mag boqola oo nin kaliya waxa weey laga dhaqaaqo ma arag anigu marka waxaan leenahay insha Allah taala ninka aan u gurmano anana ala karaan wixii aan awoodeeday waan u gurmanay amdu ala ali wa saada asma'in ama bacdo magacayga waxa la yiraahdaa Farxaan Faarax Habeen macnaha gudoomiye santarka Balcad ninka la yiraahdo Siciid Aadan Faarax wuxuu noo yimi 13 bishan labaad sanadkan 2021 inta ka bacdi ninka dhimashadiisa waa loo qabsaday reerkii ninku ka dhintay iyo reerkii ka dhashay oo Khayr Cabdi iyo reer Gorada Laascaanood bay isugu yimaadeen ninka dhimashadiisa waa lagu heshiin waayay reer Gorada waxay yiraahdeen maxkamad shariica islaamiga waxayna saartaa waxaan ahayn aanu qaadanaa ma jirto
maadaama aan marag joogin ilmuhuna saqiir yahay khayr cabdina waxay leeyihiin wax maxkamada aanu gelaynaa ma jirto anagu dhimashadii waxaanu haysanaa siciid iyo ilmihiisii ninkii maamulka Soomaaliland meesha ka jiray way xireen 3 bilood buu xidhnaa kabacdi ninkaasi go'aan ayuu qaatay wuxuu qaatay inuu geesinimo leh inuu ilmaha xaqiisa iska bixiyo qaato dhibaatada inta ay ku afjaranto kaasi wuxuu yiri waxaan rabaa walaalaha muslimiinta iyo ehelkooda inay caawiyaan adigu hadda 3 maalmood buu nala joogay arigaas yarba wadanka dhaqaale ma jiro loogu yabahay waxaan walaalaha muslimiinta ka codsananaa ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen in la caawiyo ninka